السلام عليكم waxaa laga yaabaa inaad ku riyootay safar aad ku marto dunida oo dhan soo sidaasi ma ahan dabcan ha waxaa dhici karta inaad safar badan ku kala bixiso dalka aad ku nooshahay gudihii oo aadan horay dibadda u tagin hagaag maanta waxaan aadi doonaa insha Allah wadanka Thailand diyaar mu tahay safarkan horay u soo qaado baasaboorkaaga iyo boorsadaadaba aniga ayaa og inaad si dhaqsi ah dalkaaga dib ugu soo laaban doonto wax ka yaabi ayaad arki doontaa ama aad soo maqli doontaa سوادي كراب بمشو حسن عثمان كراب إذا ما عينيه waxaan ka wadaa waad iska garanaysaa dabca dhibkayga dhaafa magacaygu waa xasan cusmaan ma og tahay daawadow ama dhegaystow in caasimada Thailand lagu magacaabo Bangkok caasimada Bangkok waxaa maanta ku nool ku dhawaad 10 milyan oo dad ah Bangkok waxaa caasimad ahaan dibadda loogu taagay sanadkii 1767 waxayna ahayd Bangkok xarun dhaqan iyo taariikh u leh dadka wadankaasi ku nool mase og tahay daawadow in webiga dhexmara caasimada Bangkok ee lagu magacaabo Chao Phraya inuu ka mid yahay webiyada muhiimka ah ee mara koonfurta bari ee qaaradda Aasiya ma og tahay daawadow ama dhagaystow in Thailand ay tahay wadanka kaliya ee dhaca koonfurta bari ee qaaradda Aasiya ee aanan weligeed aysan gumaystihii reer Yurub dhab ahaantii magaca Thai haddii luqadda dalkaasi lagu fasiro wuxuu noqonayaa dhulkii xurta ahaa ma og tahay daawadow ama dhagaystow hayaay meeshaan carabka ayaabay xanuuni doonaanaaba oge reer faarax waxay ugu qoslinayaa isdiyaariya ma og tahay daawadow ama dhagaystow in caasimada Bangkok ee wadanka Thailand ay leedahay magacyada u gaar ah caasimada Bangkok waxay leedahay magac aad u dheer waana magaca ugu dheer ee loo bixiyo caasimad ee adduunka oo dhan ku taala waa magaca ugu dheer ee loo bixiyo caasimad haye haddaba diyaar ayaa tiina u maleynaya dhagihiina fura ha qoslina soo dhadhawaada yaan la qoslin koob shaah hadduu agtaada yaala iska foge waan bilaabayaa bismillaahi raxmaan raxiim kurung tamtam mahangkong amangtong ratangshan mahangtong yitongtong matangtong rajabjab matamtam ha qoslin hadda afkaaga xir afkaaga ha qoslin waa kusii sheega aniga reer faaraxow aniga horaan idinkugu sii afeeftay oo waxaan idin yidhi magacaan waa magac aad u dheer oo aan la kari karin haddaba mar kale ayaan isku dayi doonaa aniga oo degan bal aan isku dayo magac wuxuu yahay kurungtam mahangkong amon ratangsong mahangtong yitongsom motoling bab rabtamtam rajabjab barum atomroj mahatsang among bimang awatsang ratsik sataksat wataksam brasit subhanallah barsug magaaladan dadka degan inaan weydiiyo waa magacaan wuxuu yahay asalkiisa iyo sida loogu dhawaaqo anigu waan kari waaye qof ayaan u yeerayaa sug dalkiin maxaa waaye Official name of Bangkok กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิรกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ and for the meaning is the city of angels عجيب مساكس سهل هو عجيب هرني هو اخترته انا وقعبك وراها قسل تفسير كيو hayaay meel walbo dunida markaa tagto wax ka yaabiya magac ahaan ama muuqaal ahaan ama dhaqan ahaan wax ka yaabiya ayaad maqlaysaan magacii dheeraa aad maqlayseen macnaheedu wuxuu yahay waa caasimadii malaa'igaha yiraahdeen Allah idinka cafiida been badana waa magaaladii weyneed ee aanan dhimanayn yacni midii waaraysa ay yiraahdeen waa been kale waa magaaladii quruxda badneed sida Diamond ay yiraahdeen waa ogolahay waxay yiraahdeen waa goobtii uu fadhiistay ilaah waa been kale harcad ah waa magaaladii qasriyada boqorada ay yiraahdeen waa wax macquul ah haddaba inta magac ay soo tiriyeen oo dhirkaas lahaa ee Bangkok lagu sheegay waxay la mid tahay inaga oo niraahna hargeysa har wanaagay hargeysadii hooyadii fankaay xamar xudunteeda ku duuganay xamar xaalad badanay waa intaas hal mar aan isku darno liiraahdo waxa lagu yiraahdaa Bangkok Allahu akbar anay nagu aqrinayaan waraan marka waa niman naga cajiibsan reer faarax waa niman naga cilmi badan ana idin sheega runta ma og tahay daawadow in Thailand ay mamnuuc ka tahay in madaxa la iska taabto xitaa caruurta yaryar in madaxa laga taabto waa mamnuuc
waddanka Thailand waxay aaminsan yihiin in madaxa uu yahay halka ugu muhiimsan ee jirka waana sababta keenta in madaxa isku salaamaan markasta haddii uu qofkaas soo horbaxo waa inaad madaxa u raaracisaa dalkaasi adiga oo gacmahaaga madaxa u dhaweynaya waxayna u arkaa midaasi inay tahay mid qadarin ah ma soo og tahay daawadow in Thailand dadka ku nool sida rabaayada oo kale ay ula nool yihiin maroodiyaalka in ka badan 5,000 oo maroodiyaal ah ayaad ku dhac arkaysaa caasimada iyo magaalooyinka u dhowdhowba maroodiyaalka ayaa dadka dalxiisayaasha ah la saaraa iyaga oo laga qaado khidmad yar anigu ma aha kan maroodi fuuli doona ee laba cad laga kala dhigi doona ma og tahay daawadow ama dhagaystow in Thailand ay ka kooban tahay 1430 jasiiradood jasiiradahaasi qaar ka mid ah ayaa ku soo caanbaxay markii Hollywoodka Mareykanka ay ku jileen filmo badan waxayna taasi dhalisay in ay dad badan ay soo booqdaan jasiiradahaasi ma soo og tahay daawadow in xeebta quruxda badan ee lagu magacaabo Krabi ee dalkaasi Thailand in lagu jilay filim lagu magacaabo The Beach filimkaasi waxaa jilaa ka ahaa Leonardo DiCaprio sanadkii 2000 wixii jilista filimkaasi ka dambeysana waxaa jasiiradaasi ku jabay dhammaan dalxiisayaasha dunida oo dhan waxayna sababtay in badii noolihii ku noolaa ay isaga cararaan gaar ahaan agaarka xeebta oo dhan kadib markii ay dalxiisayaasha ay wasaqeeyeen xeebta oo dhan waxayna sababtay arrinkaasi in xilligaasi wixii ka dambeeya la mamnuuco in jasiiradaasi loo dabaal galo qiyaastii waxaa booqan jiray 5,000 oo dalxiisayaal ah iyo 200 oo doomo ah oo kuwa dalxiisayaasha ay adeegsadaan ma og tahay daawadow in Thailand ay xuduud la wadaagta 4 dal dalka lagu magacaabo Myanmar oo horey loogu magacaabo jiray Burma ay xuduud kala leedahay dhanka waqooyi iyo dhanka galbeedka halka waddanka Laosna ay xuduud kala leedahay waqooyiga iyo dhanka bari ama qorax ka soo baxa waddanka Cambodia waxay xuduud kala leedahay dhanka koonfur bari halka waddanka Malaysia ay xuduud kala leedahay dhanka koonfurta oo kaliya ma og tahay daawadow in waddankan dhexdiisa uu ku yaalo sanabka ugu weyn ee dadka aaminsan budiistaha oo dahab ah sanabkan ayaa ka samaysan dahab aad qaali u ah ma soo og tahay in beerta ugu weyn dunida oo dhan oo yaxaasada lagu quudiyo in ay ku taal dalkan Thailand ma soo og tahay daawadow in sanad waliba dalkan Thailand loogu dabaaldego ama la sugu soo baxo daanyarada waxaa sanad waliba hal mar la quudiyaa daanyarada ku nool macbadka lagu magacaabo Prabrang Samyo oo ah macbad ay ku nool yihiin daanyarada dadka deegaanka ayaa halkaasi keena qudaar iyo raashin kala duwan ma soo og tahay in daanyaradani dadka reer Thailand gaar ahaan kuwa aaminsan budiistaha ay u qadariyaan daanyarada inay yihiin geesiyaal kuwaasi oo difaacay ilaahay aaminsan yihiin xaaskiisa waa tahay waxa la soo gaaray guntii gunaanadkii barnaamijkeena ma og tahay oo aan maanta booqasho ku tagnay dalkaasi Thailand gaar ahaan caasimada Bangkok oo ah magaca ugu dheer ama caasimada leh magaca ugu dheer magac muxuu ahaa horta kurunke mahankanok amon ratana kosim mohonkin yutinya mahondilo baprotum ilaahay naga cafiyo subo ninkaan weydiinaya magaca dhameystiran Bangkok ii sheeg Krungthep Mahanakon Amon Ratana Kosin Mahintara Yuthaya Mahadirak Phop Noparat Rajthani Burirom Udom Rachaniwet Mahasathan Amon Piman Avatar Sathit Sakatatiya Visanu Kampasit bravo saaxiib si fiican aad ugu baxsatay waxaan idinkaga tagayaa Bawagawaani Qarab Zawati Qarab وأنا حسن عثمان حاجي واحد من كاغتي وإنه كلنتي دنبي برنامج كنا موقتها يدل كله